waxaan u soo gudbinayaa Faysal iyo Cali Khaliif waxaan leeyahay halkii aad jecleedeen baa tagteene ilaahay idinku asdiro aan lagu soo noqoninay ragii aad doonayseen ishashee israaca qoladana intaasaan oranayaa ilaa iyadu inay wada hadashaan loo baahay laakiin looma baahna in ciidamada la dhabar jabiyo inta gudaha joogta ee xuduudda wada sheeganaysa wixii ka qabiya ah inay dhamaadaan laba heshiisna in madaxweynuhu soo sida ugu dhaqsaha badan loo soo saaro ergada ceelafweyn u diro wixii ka qabiya ceelafweyn lagu dhameeyo marka tan dhamaato amaha waxaad moodaysaa in muran badan oo uu jiro arrimaha dibadda oo la maagayo koob guddiyo Garowe iyo tagay oo saxaafaddu aad u wareysanayso laba mucaaradka oo aad moodo inaan sixitaankoodii uu xayndaabkii dhaafay saddex arrinta qaatumo afar iyo qodobka shanaad oo ah Soomaaliland iyo Puntland colaadda dhextaada inaan arrimaha mid beeray ka yidhaahdaan doonaya horta waxaan aad iyo aad ula yaabay waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadu xilkeedii intay gabtay haddana hadlaysa saaka waxaan islaamiyada difaaca laakiin maadaama wasiirkii annagii nagula kufay horta waan isdifaacayna ayadda una duldhigay labadii bilood ee ugu dambeeyey labada guddi ee baarlamaanka ee mid anigu aan joogo midna Kijaandha joogo waxaanu qabanay hawshii ugu badnayd ee guddiyada arrimaha dibadda ee baarlamaanka horta waxaan aad ugu mahadnaqayaa midowga Yurub baarlamaankiisii oo markii ay Brussels soo saartay warbixintii Soomaaliland dhanka ka ahayd xaqiiqdii dhabta ahayd ee Soomaaliland taalay iyo xaqiiqdii dhabta ahayd ee Soomaaliya taalay labadaba ka hadlay wasiir qiimo leh Soomaaliland waxay tahayna sheegay Soomaaliya waxay tahayna sheegay waxay sheegeen 6 bilood ee farmaajo joogay bini'aadmiga lagu dulay dalka Soomaaliya la yiraahdo waxay sheegeen inuu soo dhaafay oo xuduudda Soomaaliland gudaheeda labadii nin ee ugu dambeeyay taleex lagu dilayna uu sheegay dad 2500 oo muwaadiniin Soomaaliya ah in dawladda Soomaaliya ee taagta daran ee Puntland ay ku jirto ay kulaysay dalka Soomaaliya la yiraahdo Talyaani gumaysan jiray anagu baarlamaan ahaan baarlamaankii midowga Yurub waan xiriirnay warbixintii imika waxaan idinku dhiibay oo kala qaadan doontaane ay ka soo baxday midowga Yurub ee shirka iyo Soomaaliya ka hadlaysay waxa idin hayay Siciid oo honka jooga isaga idin qaybin doona waxay ka hadlaysaa shirka laftiisa Soomaaliya ka soo baxay meesha loogu yeeray ee hay'aduhu ugu yeereen laakiin baarlamaankii midowga Yurub oo dawladda Yurub bedelay oo Belgium degan markay waxa soo saareen uu fariistay wax ka duwan oo soo saaray waan u dirnay wasaaradda arrimaha dibadda saaka wasiir ku-xigeenkii baan ugu dirnay waxaan leenahay shaqadaadii haddaad u qabtaan oo taayadii oo naynaa dhaliisha naga daa waxa kale oo aad ka qaadan doontaan Siciid sanadkii Mareykanku waxa uu soo saaray iyo xaqiiqda dhabta ah ee uu Soomaaliland ka sheegay wuxuu ku qoray jariirada adduunka ugu weyn ee la yiraahdo New York Times annaguna mid baan u dirnay madaxweynahana koobiyaan siinay annagu xilkayagii maanaan gabin horta isaga gabay arrinta guurtida uu ka sheegay ee uu leeyahay ceelafweyn baa loo diri waayay ceelafweyn waxa tagay horta ninkii wax kala garanayaa waa guurti annaga intii golahana soo qortaa ayaa joogta haddii go'aankayagii lagu qanci waayay in aan waayeelkii annaga culimo lahaa ee salaadiin lahaa ee cuqaal lahaa ee ninkii wax kala garanaya lahaa in ay tagaan annaguna waan ku raacsannahay iyaguna waa kuwii annagan golaha inaanu nimaadnaba nalahaa dee lama arag inaan aabbihii la murno kuwii golahana keenaa jooga
ilaahay waxaan ka baryaynaa inay hawshaas dhammaato fariin baan raacinaya waxaan leeyahay arrinta ceelaf weyn waxaa ag taalla shirkii oorbogaysiinta ceelaf weyn u jirto oo aragtaan khilaaf baa ka jira heshiiska wax badan heshiiskaas wuxuu ahaa heshiiskii bayska u ahaa in doorashooyin dhacaan wuxuu ahaa heshiiskii inay khaatumo timaado keenay wuxuu ahaa heshiis miisaankiisa leh waxaad moodaa in dadkii deegaankaa joogayna ay xishoonayaan oo ay diidayaan maanta iyadoo Soomaaliland la jilicsan tahay in la faqfaqo laakiin mar haddii la deyn waayo kuwii riwaayadda ahaa kuwii rasmiga ahaa baa soo baxaya madaxweynahana waxaan leenahay xeerarka dhexun oo aan heshiisyada ay dowladdii hore gashay kuwii miisaanka weynaa ari cadeeye iyo oorbogaysiyo yaan la qarin ergooyinka tegay ee isxilqaamay ee buuxana ka mid ahaa ergadii tagtay ee uu xalay hadlayay waxaan leeyahay madaxweynaha ka beesheeg madaxweynuhu intuu guddigii abaaraha idinka qaado tukarraqiyeedii ma dirsadeen garow kaana intaasaan kaga jawaabaya intii waxaa lay lahaa